وديرجليه الصوماليات يادو تقانين مدن محمد عمر. ولا ليال وان سفري تتكلم دوم بان لا هادلي مالك الدوم بان كهادلي مدل شان كقيمة بدن أو كميسان علوس أو أندريم يو ماركتي مسؤولية كوين مسؤولية دي الله اللي يسهره تنان أدو درين سنة لأن waxaan arkayaa maaragtay dad badan oo noloshooda dadaalo ay sameeyeen miradhaba ka keenay dad badan oo runtii ku daydo oo noloshooda natiijooyin la taaban kara ka keenay innagana si adkeyn kara xujada in dul taala ee ah hadduu qabtay ama ay qabatay adiguna waad qaban kartaa waxa kale oo maaragtay runtii aan dareensanahay mas'uuliyad akhlaaqeed oo aan ku talagelin because waxa halkan fadhiya dadkii aniga waxay soo baray dadkii soo hoga tusaaleeyay dadkii runtii tooshka ii hayay markii aan buuraha maaragtay buuraha lagala baxay maaragtay kadarta markii laga baxay walaalayaal waxaan dareensanahay dad idin ka mid inay magaalada meel aad uga baxsan ama wadan ka baxsan uga yimaadeen munaasabada walaalkay maxamed baa runtii inspiration aan ka dareemayaa oo runtii aan u malaynayo 600 mayl in uu soo socdo marka I appreciate you guys inta kadib haddaan toos u galo fariintaan rabay inaan caawi idin la wadaago waxay ka bilaabmi reer Minnesota waa Markini waxaan sidaa u leeyahay kelmadda markaan leeyahay waxaan leeyahay anigu aaminsan inay tahay xilligii ugu saxsanayd aynu wax bedelno aynu wax qabanno aynu course of life keena ama jihada nolosheenu hayso wax kamida aan ka bedelno si safarkeenu u sii hana qaado I say that because I believe waxa la dunida maanta inagu xeerani waxay noo sawirtay mala awaal ku saabsan wax noqoshada iyo maaragtay kartida iyo muuqashada I say that because I believe generation kan anu kamid ahay waxa ku sii daba yaraanaysa dhabnimada iyo waxa dhab ahaan nolosha lagu qiimeynayo ee qofku isku qiimeynayo maxaa siinaya dhadhan dhaba noloshayda maxay la macno tahay inaan wax gaadhaa marka waxa hadda aan aad ugu dadaalaynaa oo aad ugu mashquulsanahay inaan u ekaano qof macno leh ama inaan u ekaano qof guul gaaray ama inaan u ekaano qof wax achieve garay projection of power ba aan ku dadaalaynaa inaan tusno dadka inaan wax nahay inaan wax gaadhnay inaan wax haysano inaan wax nahay taasaan ku ilownay inaan actually wax noqono and that's so sad waa arrin runtii qofku hadduu fiirsado oo niyadiisa la sheekaysto oo true reflection uu sameeyo qalbigiisa taabanaysa ma waxaad ka shaqaynaysaa inaad dhab wax u noqotid oo waxaad haysaa shaqadii wax kaa dhigi lahayd mise waxaad ku dadaalaysaa in lagu arko qof guulaystay midkee kula macno weyn in lagu arko iyo inaad noqoto haddaad sidaa u fiirsato waxa mujtamaceena kaaga soo baxaya astaamo sheegay in dadaalku uu galayo projection in wax la tuso dadka oo magacyada iyo munadahan isku ladlarayno iyo sida ma aragtay movies kan sameynayna waxaad yara moodaa inay u qorshaysan yihiin sidii oo cadow baan leenahay naga jab war cadowga kaliya leedahay waa inaanad waxba noqon cadowga kaliya leedahay waa in aad ku dhex lunto been iyo buuq aad adu abuuratay oo cid ka badbaadisaad weydo that's a true enemy cadowga kuugu weyn waa illusion eg tusaale yarood ku qanacdo aad ku aaminta arrintaasaan ku siinay maanta maxay nala qiimo weyn ma inaan aqal dhisano mise inaan guri dhisano waxaan qiimeynaa size-ka gurigaaga meeshuu ku yaalo location-kay tahay amenities-ka iyo waxa dhex yaala ma taasaa waqti iyo lacag badan iyo khayraad badan ay naga qaadataa mise waxa khayraad iyo lacag badan iyo waqti badan ay naga qaataa inaan dhisno guri lagu noolaan karo because labadaasi waa dynamics kala duwan mid wuxuu u baahan yahay mitiro decoration wax maadi u baahan yahay
midna wuxuu u baahan yahay adduunyo aanad arkayn laakiin aad dareemi kartidun wuxuu u baahan yahay jacayl wuxuu u baahan yahay commitment wuxuu u baahan yahay naxariis wuxuu u baahan yahay kalgacayl wuxuu u baahan yahay waqti dhaba wuxuu u baahan yahay joogitaan iyo xaadir wuxuu u baahan yahay maaragtay inaad nafuurnimo these are waa commodities iyo agab adduunyada maanta ku daba yar midna wuxuu u baahan yahay jaajuur layd lacag waxyaaba maaduu midna u baahan yahay marka taasoo kale waxay kuu muujinaysaa eg waxaan kusii durkaynaa waxaan macnaha lahayn waxaan maalgashanaa xaflado aroos laakiin ma maalgashano qoys you know that soo sama xaflad kala kacsan baa u dhacday but sadly few months later waa la isrifayaa waa la isla dhimanayaa qof keligii ma dhimanayo waa la isla dhimanayaa si la isugu dheganya la isku xaganayo qof walba iskii iyo gaarkii u dhimanaya one is eg midi waxa weeyaan actual deal arrinta dhabtaayee jirta ee adiga kuu baahan ta kale waa maxay waa waxaan kuu baahnayn iyo khiyaal aad abuuratay oo rabtid inaad naftaada ku sisabtid mid waxay qancinaysaa maaragtay convenient comfort protection khiyaal yaroo dhisatay bay kuu ilaalinaysaa midna waxay dhab u soo saaraysaa duntaada iyo qofkaa tahay iyo koorkaaga iyo dhuuxaagay soo saaraysaa arrin kalean idiin sheegaya tv-ga gurigaaga sizekiisa iyo intaasoo inch baan haystaa tv-gaaga ayaa marmarka qaar kaala qiimo weyn inaad aragti leedahay so we invest in a big screen television not an actual vision qofka aragtidii xitaa ma daneeyo inuu tv gurigiisa yaalayn xitaa ma xasuusto laakiin qofka aragtidiisu ay lunsan tahay ama u baahan aragti macno leh wuxuu ku mashquulaa wax weyn meel muraayad weyn oo wax ka daawado this shows you wixii dhab ahaan ay ahayd inaan ka shaqayno waxaan ahayn baan ka shaqaynaynaa soo ma waxaan ka shaqaynaynaa oo tacabkeena iyo dadaalkeena iyo tamarteena badankiisu inaga galaysaa sidaad u eeg tahay baa kaala macno weyn sidaad dareemaysid marmarka qaar qofku wax naftiisaba dhibayood arkaysid inay dhaawac ku tahay oo dareensan yahayba gabdhuha iga raalli hadaan hadday ismoodaan inaan iyaga ka hadlayo it's both ends naga laftigayga waan samaynaa ragaan wax adiga si kasta kuu dhibaya oo aad dareemaysid inuuna dareenkaaga aan u fiicnayn laakiin u fiican muuqaalkaagaa samaynaysa xaraga xanuun male bal uu dhintay qofkani lugii baa baaba'ay xaraga xanuun male what you feel iyo what you maaragtay how you look midkee macno leh haddaana dareem markaad seexanaysid waxaad dareemaysid baa kuu muhiima maalintaad dhimanaysid ee ilaahay wadkaaga keeno daqiiqadahaaga ugu dambeeya ka fikiri maysid sidaan u eekahay iyo ama looking good iyo cadar ma marsanahay iyo ma xidhis waxaad waa sheeko yar bay noqonaysaa waxay ugu weynaad ka fikiri doontaa waa maxay maxaan dareensanahay maxaan noloshayda ku soo qaatay dadka ehelkayga ayaan jeclaayay ii dhawaa maxay iga dareemayaan it comes down to morals psych feeling waxaasay imanaysaa aragti bay imanaysaa marka jiil sidaa loo khalday runtii oo maaragta aad dareemaysid in illusionka iyo khiyaalka la sawirayo loo ekaysiinayo libin ay ka badan tahay waxa dhab ahaan macnale ee guul noqonaya marka taa lagu jiro dee xaq baan u leeyahay inaan ku idhaaho waa markaagii waa markii taa aad ku qaban lahayd boos eed oran lahayd waan ku daalay it's tiring I can't do it anymore halkan ii dhiga bal aan yar tijaabiyo caalamka dhabnimada aan yar tijaabiyo caalamka wax noqoshada caadiga ah bal aan yar tijaabiyo what it actually takes waxay u baahan tahay inaan fikrad maskaxdayda ku jirta iyo hamad laabtayda ku jirta inaan dhabeeyo waxay u baahan tahay in yar tijaabiyo bal buuqan iyo saxmadan jirtay intaan yar aamusiyo bal caalamka aamusanaan isla galo caalamka uu maqlo uu qofkaan hadal aan marka waxaan ugu talagalay walaalayaal in aan isla explore garayno waqti yar ku qaadano waxa macnaha aan lahayn inaan ka yara duno attentionkeena oon u duno oon yara eegno bal hadda ugu yaraan iskula qaadano in loo dhaqaaqi karo dhinaca ay naga xigto waxa dhabtii xaggu naga xigo inaan u yar dhawaano dhabnimada sax taasi waxay u baahan tahay markaa walaalayaal oo ay ka bilaabmaysaa waxa in course of action wax sida u socdaan in wax laga bedelo laba approach un bay leedahay approach ama midi waa mid madhalayso iska maaragtay aan meel dheer tegin midna waa ka ay ka hadho
natiijooyin raandiis leh oo weligeed socda approach waxa weeye qofki wuxuu eegi ama cid wax rabtay inay qabataa waxa eegi outward wax walba wuxuu moodayaa qofka raba inuu wax bedelo ama wax jiho wax u sameeyaa wuxuu moodayaa banaankiisa inay nolosha ka soo bilaabanto qofna wuxuu oranayaa waxa banaanka yaalo waxa maamulay waxa gudaha yaalo waa sababta markii barnaamijkan aan idin soo yeedhinayay aan uga dhigay dulucdiisa meesha aad ku nooshahay waxa ka muhiimsan waxa adiga kugu dhex nool eriga dad badan ma fahmin ilaa haddana waxaan isleeyahay dad badan ma fahmin nin saaxiibkay oo maalmahan oo dhan wada socono rafiiqayga ayay igu dhoni horta anigii kula socday erigan ma fahmin maxaa igu dhex nool maanu ma wadan baan maxaa igu dhex noolaan kara waana dareemo runtii baad waxaan ku yidhi waa runtaa meeshaad ku nooshahay waxa ka muhiimsan waxa kugu dhex nool waxa weeyaan walaalayaal god baa waxa ku jira salaano salaanada godkaa ku jira ma tiirsanaa oo sidaa uma tiirsanaa way isdul saarsaarayna sanay way jiifaan laakiin way isdul saarsaarayeen iyaga baa tiro badan noqday ninkaasi wuxuu rabaa inuu salaanadaa ku istaago si uu uga soo baxo meesha ma ka soo bixi karaa ma khayraad baa ku yar meeshuu joogaa ma bilaa fursad baa ma u haysaa wixii godka ka soo bixi lahaa soo sama waa laakiin maxaa ku yar waxa ku yar isticmaalkii khayraad marka haddii adiga aanay waxba kugu dhex jirin oonay hamad kugu jirin oonay farshaxan kugu jirin oonay farsamo kugu jirin oonay fakar kugu jirin oonay faduuli kugu jirin oo gudahaaga ayna oolin dareennada noocaasoo kale haddii jannada lagu dhex geeyo waxaad raadini wax ka khaldan problemka mujtamaceena haystaana waa kaa because waxba inaguma dhex noola oo gudaheennii baa laga yaabaa inuu burbur badan iyo sixba ay ka jirto chaos wax kastoo wanaagsan waxaan ka dhex raadinaynaa mushkilad wax kasta oo wanaagsan waxaan ka dhex arkaynaa waxa ka maqanay ka dhiman laakiin qofka gudihiisu markuu dhisan yahay wax ku dhex jiraan ay imkaaniyaadkii iyo resourceskii khayraadkii u baahnaa dhex yaalaan uu baraarugsan yahay maskaxdiisu ay nadiif tahay waa sidii gaadhi muraayadiisu ay nadiif tahay wuxuu arki karaa wax kasta asiriis weliba wuxuu arki karaa even xaaladaha ugu xun iyo caqabadaha ugu xun ayuu wuxuu ka dhex arki karaa fursad and in my case aniga sheekadayda aad baan ugu celceliyay waan liin la qibay about 16 years waan ku celcelinay so most of you waxa laga yaabaa inay sheekadayda si fiican u garanayaan in my case that was the case ciyaalnimo buuq iyo waaliya baan soo marnay in fact marar badan aan waxaan idhahaa ciyaalnimadeedu waa lanaga xaray but that wasn't waxaan maamuli karay maxaan maamuli karay laakiin I thought with this chaos if I put it together well oo aan daba joogo long enough oo aan adkaysan karo oo aan maskax furan iyo maaragtay dhiranaan la iman karo I can put things together and this chaos can be something that works for me and I believe it did waxaan isleeyahay it comes down to walaal waxay ku imanaysaa waa gudaha inagu waxaan moodaynaa nolosha badankeygu inay bannaanka soo bilaabanto I'll go to the States maraykankaan tegi doonaa waan kala degi doonaa maraykankii baa tegi doonaa I understand maraykanku inuu meel fursado badan yaalan yihiin laakiin fursadahaas waxa keliya helaa qofka isagu resourceful qofna khayraad buu raadiyaa qofna isaga khayraadka haysta oo wuxuu yaqaanaa khayraadkiisa looga faa'iideysto waxaad siisaa qof doqona waxaad siisaa baa la yidhi $100 wuxuu kula soo noqon isagoo wax soo iibsaday qof fariid oo maskax furan oo dhisan oo de maaragtay maan furan haya u dhib $100 wuxuu kula soo noqon doonaa twice the money ma aha walaal labada qof kuma kala duwana in min maaragtay xaafado kala duwan ay ka yimaadeen iyo dad kala qoysas ka fiican ka kala yimaadeen inay kala qabiil yihiin like context keena maka it depends on qofka maxaa ku dhex jira marka qofka gudihiisa banaankeyga wax ka raadinaya wuxuu ku jiraa safar dheer oo hubanti la'aana oo wada niyad jaba oo wada buuqa mana ogeyn inuu buuqa ku jiro because wuxuu aaminsan yahay isaga equation-ka iska saaray qof xisaabta ku shaqaynaya isaga intiisii baa ka maqan haddaad si fiican u waraysato wuxuu ka odhan maalintaydi way soo socotaa laakiin 10 sano ka hor maalintaydi way soo socotaa unbaad igu lahayd maalintaadana aan imanaynin waa maxay this is a long wait
أنا صبر قبلي ما تراهد مالن هذا أنت تسويسد ما أنت يلت ما أنت شيء ما أنت مالن تيد سيدا كنت هاي because واحد قصته يجب أن تاي أنا قبلي وعقورنا يا قف مركو نفتيسة يو خير يسوي حسابات نفتيسة كر حساريو أو يسوي يسدب دجانيو واحد قصته كلو كوش هيك يا أو صورة قلين كروح وكفكريو هبل بالك شوجا هبل كا اسكو حريا دق دق وحبان وشقينيسا هذه يقول قيبت هذه مين what are you doing about it ما تشرت marka walaalayaal outward kama soo bilaabmayso sheekadu xagga banaanka kama imanaysa gudaha ka imanaysa gudahana halkay u dhimatay waa tan walaal ilaahay bay noo sheegay subxaanahu wa ta'ala qofku hadduu rabo inuu wax qabto ama wax bedelo ama qulqulka nolosha wax ku daro ama wax ka saaro ama uu course of action isa wax u socdaan wax ka bedelo waan haysanaa qaacidadeedu already waa lagu sheegay laakiin because you are so distorted reality iyo khiyaalka la inoo sawiray ay beenta aba aan isku dhaxilownay waxaad aaminsan tahay waxa banaankaaga yaala wax suura gelin karo inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma halkaas socda sheekh abdullah ma bi anfusihim maxaa lagu sheegay halka tilmaanteedu waa maxay inside what is inside maxaa kugu jira hadaba weeyaan su'aashu waa sababtaan kuu leeyahay meeshaad ku nooshahay muhiim maaha ee waxa ka muhiimsan waxa adiga kugu dhex nool gudahaaga weeyaan sheekadu marka sheekadeenu halkay ka khaldan tahay walaal waxa weeyaan banaanka maaha waa xagee inside marka shaqadaada adiga aniga shaqada la inaga rabo inaan wax ka qabanaa waa xagee wax ka saxaynaa xagee wax ka bilaabaynaa codkaaga si fiican aanu maqla halkee wax ka bilaabaynaa shaqada oo dhani from beginning to ending xagee taala waxa gudahaaga ku jira go'aamiyo waxa banaankaaga yaal waxa banaankaaga yaal ama go'aamiyo waa laga yaabaa marka qaar khayraadkii waxyaabaha kula yaala iyo waxa banaanka yaala iyo lacagta iyo fursadaha iyo xidhiidhada iyo caanimada iyo in lagu yaqaano iyo inaan lagu aqoon iyo inaad meel fursada yaalaan joogin iyo inaad joogto meel fursad waxaas oo dhan waa laga yaabaa inay ku saameeyaan but trust me haddii una guduhu dhisnayn it's misleading waana aragteen dad badan oo khayraad badan haya oo laga yaabo in aad kaaga dhow yihiin dhabaynta wax badan oo suuragala but they are not because shaqadii gudahaan la qab ka halka shaqadeenu ka bilaabmaysi sheekadeenu ka bilaabmaysaa waxay walaal gudaha weeyaan ma baan fasiin weeyaan waa gudaheena inaan shaqo ka gudaha laba laga rabaa safarka caadiyan ku jirno noloshu de marka qaar way ku qaban dhegtaa lagu qaban ciida sanka lagu dari boorkaas ka laaqani waa iska caadi idis mid walba meel buu ka soo bilaabaya ya and most of us sadly nolosheena iyo waaqiciina markaad eegtana badankeenu waxaan ka soo bilownaa waaqic foolxun dhibaato badan baahi badan taalo chaotic waa iska caadi inaga in our context صح waaqiceen iyo dadkeen iyo umadeena saasan u badanahay laakiin taa muhiimadu maaha muhiimadu waxa weeyaan waa halka loo socdo it's not meesha laga bilaabayo waa meesha loo socdo marka haddii fool xun tahay oo dhibaato tahay oo kuleel tahay oo cadaab tahay meesha laga bilaabayo meesha loo socdaa inay ka duwanaato meesha shaqadan gudaha baa ka mas'uula waad la fahanteen taas ma shaqada gudaha ayaa ka mas'uula marka shaqada guduhu waxay ka bilaabmaysaa walaal waxa laga yaabaa wax ka maqan oo raadinayso ama mushkilad ku hor taalood xalinayso inaad identity-gaaga iyo aqoonsi ka soo qaadataa laga yaabaa because waxa ma haysatid saadarteed victim baa tahay oo ka dhibanaad kor u haysa dadkuna waa intaan qofku ama dhibaato iyo mushkilad ku dhex jirta ayuu ka soo qaatay identity oo guilt uu dareem dadka qaar marka aad aragto qof ku jira daa'iro maaragtay ama vicious cycle uu bedeli kari lahay wax ka qaban lahayd wax ka qaban kari lahayd sidoo u arkay isagoo ama si u aragto haddaad ku tiro hadalka sidii wax u jiraan wuxuu ku oranayaa wuxuu ku guilt uu dareemaya sidii oo isagu uu mas'uul ka yahay waxa ku dhacay hadduu qofku guilt trap-ka ku jiro mar walba oo dabinka lugaha uga xidhnaado maaragtay inuu dambiile dareemo in maaragtay wax khalad uu sameeyay laga jarayo uu dareemo oo taan ku wareego eventually Dr. Jibril baan u geenaynaa sheekadiisu waxa noqonaysaa sheeko isaga cunta qof isagu isruugayo noqonaya adaa isla hadhaya maskaxdaada dilaysa marka dambe waxaad gaari doontaa maaragtay xaalada nafsiyo ay adkaato in lagu la tacaalo it leads to mental health marka inuu qofku si constant oo joogta u hoos joogo xaalad uu ku dareemayo qiimo la'aan
ودنبيله ودريم blame يا shame يا وإسليه وحبا كاخلد وحبا ما كرتيد أدوك ساسات هاي أو وجهك دتك كدورة يا وكعرر يا مشكلة ده لكن there is save it حل باجر حل كوا محي وحكوا دعاء وباستيد مكاسة حل وجهرية وحكوا دعاء وحكم يمسون وحاضدوا كقبطه وحكوا دعاء عدو متيد وحكوا دعاء إيه أديك يا نبو من هو حين دعاء waxay nagu dhacay waxaad ka qabatay xaalad isku mid ah hadii laba qof la siiyo natiijooyin kala duwan bay dhalanayaan and that's not because qof baa qofka kale ka fiican it's because their thinking is different how they approach it is different fikradii ku wajahayaan baa yara kala duwan soma marka fikraduna saasay u dhalinaysaa maaragtay natiijo macno leh marka waa inaan ka dhaqaaqnaa giltigaas aan ka dhaqaaqaynaa waxaan u gudbaynaa markuu qof wax yara qabtay oo siraxo victim baa haddana dareemaya waxbaa iga khaldan dhibanaanahay tanaa iga maqan tanaa iga wayna dhacdaa caadi soo maa inagu dhacdaa inuu qofku dareemo guilty aw waxaan jeedin inuu qofku dareemo victim kaa dhibanaa oo kor u hayo oo waxay u samayn weyday nin ma samayn karo because waxaa ma haysto maxay u samayn weyday because qoys ladan kama iman maxay u samayn weyday aanu qoyskayga lama soo korin hadda marka inuu qofkii kaa dhibanaa markuu qofku xaaladdaa labaad soo galo wuxuu arkaaba waa laba shay uun waa qof badbaadu raadinaya ama dadkoo dhan col bay leeyihiin qof kasta uu la sheekaysto iyo waaqicoo dhanba wuxuu ula muuqdaa qof eedaynaya isaga iyo qof difaacaya xaaladdaasina waa xaalad kaloo aad u fool xun oo halisa qofkuna muddo dheer ma sii joogi karo inuu qofku si joogtaa u dareemayo maaragtay hebel baa iga xun heblaaya iga xun waa la isoo eegay waxay igu hagaagi waayeen because cabdiwaaxid baa sidaa iyo saa ii qaban waayey adeerkayoo kanada jooga ayaa i taageeri waayey eddadayoo sidaa ah ayaa waxaa igu tiri beri all he has is wuxuu wataa jawaan dhan oo qiilo wataa arrintaasaanan u badannahay inta badan waad ogtihiin arrintaasaan u badannahay oo qofka maaragtay ma gudbaha ee aan rabin inuu gudbo ee aan qorshe ka lahayn inuu wax qabsado most of the times wuxuu haystaa qiil interestingly qiilashaasi waa qiilo xiiso badan qofku wuxuu farshaxan ku noqonayaa inuu abuuro qiil yaroo qof walba ugu garaabo oo yidhaha wallaahi waa runtii ninkaa waxbaa ku dhacay but that's not what you need adiga waxa ku badbaadinaya wax ku taraya taa maaha waxba kuma taraysa inaa kula qiiroodo qofku wuxuu ugu jecel yahay xaaladdan markuu ku jiro in lala qiiroodo wallaahi waa runtaa wuxuu raadsan qof kasta oo isaguna qiilal haysta qiilashaasaa la subcin maqaaxyaha soomaalida la tegi koob kafeeyoo dheer baa la cabi maalin oo dhan sheekadu ma dhammaato waa masaaj oo kale weeyaan because waxaad isku laqibaysaa sheeko aan meel la ku geynin adduunkana waxaad ugu necab tahay qofka kugu idhaha walaal iyar istaag iyar istaag iyar istaag saad waxoodiid waxbaa ka khaldan mas-uuliyad qaado dib isugu yar noqo sidaa iyo saa waxu yara samey qofkaasi maalintaasuu kaa dhintay maalintaa kadib kuma soo noqonaysa waa isdayseen qofka because qofkaa maxaad u aragtaa caadi baad u aragtaa waayo muxuu taabtay boogaad qarinaysay u qaabtay soo sama xaaladdaas waa xaalad waalan oo halisa dad badan oo inaga midina waa victimhoodka iyo qofka inuu garbihiisa hoos u dhigo indhihiisa godo oo mar walba uu qofka cabanayo always waa complain qofkan uu ka caban tan uu ka caban xaalad kastood aragto uu cabanaya weligii ka maqli maysid qofku markuu xaaladdaa ku jiro inuu yidhaahdo I take the blame waxaa soo sameeyey natiijadiisii baa tana waa khaldamay I did the mistake saxideedana diyaar baan ah waayo hadduu intaa sameeyo xor buu yahay qofkaas xaaladdaas wuxuu kaga gudbi karaa qofku markaa inuu aqbalo in la badbaadiyo waayo badbaadi u baahan yahay sida loo badbaadin karaana waa maxay sida loo badbaadin karaa inuu qofku qaato inuu teachable noqdo in wax la bari karo tala qaadan karo uu raadsadaysa marka hore ma raadsanayo of course for sure because vicious cycle buu ku jiraa laakiin inuu badbaado helo badbaadadu helayaana waa mentorship in qofkaa gacanta la qabto la yidhaahdo kaale walaac waxbaa kaa khaldan I know waxaad rabtid waan garanayaa qiimahaaga waan garanayaa just because you have few things not going well for you doesn't mean inaanad qiimo lahayn xaaladaha isku qiimaynin wax ka weyn xaaladdaa tahay xaaladdu markayna ku iman waad ka wanaagsanayd ina mari ereygii waad xasuusanaysaan caankii ina mari ila dhaha ina mari xaaladdaasina waa xaaladda labaad xaaladda saddexaad aan isleeyahay qofku fasax baad
xaaladda saddexaadna waxa weeyaan ee ugu muhiimsan walaaleen isleeyahay waa xaaladda la yidhaahdo victor qofku inuu bislaado uu miid noqdo oo xaggan ku dhufo wada kuuskuus noqdo jilbuhu soo xoodhaan oo ciidda soo cuno wax walba soo life humbled you so badly hadda diyaar baad u tahay in lagu saxo marka qofkaasina wuxuu yeelanayaa rugunno waaweyn oo kor u haya rugunnadiisa kow maxaa ka ah wuxuu raadsanayaa qofka victim hoodka dareemayay muxuu ka cabsoonayay muxuu ka ordayay qof kasta wax u sheega sax qofkan wuxuu raadsanayaa qofka challenge garaynaya wuxuu ku leeyahay warganay i challenge gareeya I have this idea war waxaan passionate baan ku hay waxaan waan jecelahay ama ila qaadan ma hayladid sheekh cabdiraxmaan oo qaa'idkayga haddii xitaa diido igu qanci sheekh baan leeyahay i challenge garee igu qanciina in arrintan wanaagsaneyn maxaan raadsanayaa challenge dadka maxaan u arkaa dadku waa labun waa qof waxaan ka baranaya coach garaynaya ya sheekh cabdilaahi gacantuu qabanaya teach me this waan kuu baahanay I need this bile very successful business entrepreneur I need your insights please waxay bar waqtigaaga waan iibsanaya weliba aad rabto teaching coaching mentorship qofku waxa ka go'an xaaladda inuu qofku wax ka barto ama inuu raadsado challenger labada aan qofku dhex shaqeynaya muxuu helayaa markaa qofkaasi growth korin neecaw hawo uu neefsanaya wuxuu dareemayaa progress inuu qulqul nololeed oo qurux badan ku jiro dareemaya korin buu dareemaya and mind you korin kuma wada qurux badnaya marka qaar markaad korayso you look so bad fol xun tahay because noloshayna bartay in qofku haddii uu wax ku dadaalo waqti siiyo tabaheegii helo farsamadeedii hayo adkaysi ku daro inuu gaadhayo waana ballanqaadida ilaahay nolosheena dhex dhigay in haddaad dadaasho oo waqtigeegii iyo tamarteedii iyo farsamadeedii aad la timaado daba joogto long enough inay imanayso soo sama so rocket science maaha xagaas laakiin waxaa rocket science ah oo weli inaan inagu liqinayn laabteedna degin inayna shaqadu bannaanka ka bilaabmin waxaad haysato waxa keena waxaad tahay soo shaqadu maaha inaad ku dadaasho inaad wax badan hesho shaqadu waxa weeyaan inaad ku dadaasho inaad wax badan noqoto waan idinku adkeenayaa qodobkaa waan idinku adkeenayaa walaa dadaalkeenna badankiisu waa inuu ku jeedaa wax noqosho because qofkaad tahay baa kuu goynaysa waxaad rabtid inaad heshid haddii qaacidadan ka dhaqaaqinaa taa tahay dariiq saxaan joognaa haddii qaacidadan ka duulaynaa ay tahay khayraad markaan helo uunbaa wax noqonayaa waxaan joognaa dibu socosho reefers baan ku soconnaa marka waxaan ku dadaalaynaa walaalayaalo shaqadeenna badankiisu ay galaysaa ahaanshaheenna waramaay laba mid uunbaa mar walba inaan isweydiino aan ku khasbanaanaynaa maxaan ahay maxaan rabaa inaan noqdo iyo waxaan qabanayaa muxuu iga dhigayaa that's it marka xisaabtaadu way fadhidaa maxaan hadda ahay maxaan rabaa inaan noqdo iyo waxaan qabanayaa muxuu iga dhigayaa data ahaanshuhuna caalamka maadiga wax yar buu ka soo galaa wax kastood u baahan tihid inaad noqotid ama ahaatid way ka adag tahay inaad wax dadaalkaad ku helaysaa way ka adag tahay inaad wax maadiya hesho sax way ka adag tahay inaad wax maadiya hesho marka waxay bahashu tabaysaa wax noqoshadana waan ka sheekeynay it's more psychology it's more waa wax aanad arkayn waa wax aanad taaban karin waa waxaad dareemi kartidu marka waa caalam inaga qarsoon waxaa la yidhaahdaa waxaad xilli madowga samayso gudcurka iyo habeenka qof walba jiifsaday ee uu hurdada ledaya uu si fiican oo raaxale jir iyo maskaxba u nasinayo waxaad samaysid xilligaa madowga put you in the light dadka aad arkaysid wada iftiimaya ee nolosha dhexdeeda laga daawanayo waxay qabanayaan oo dhan ay wada iftiin yihiin marka daawanaysid qofku wuxuu jecel wuxuu samaynayo ay ku beer qaadaysa soronaysa god damn qofkan xagu ka yimid kani war ninka qofkan waaba jahad gooni ee aad ku raaxaysanaysid araggiisa iyo iftiinkiisa iyo sidoo wax u qabanayo it's not because intuu iska soo kucun ma noqon maraad nasanaysay buu shaqeeyay maraad hurday buu soo jeeday waxaad diiday buu qabtay waxaad intaad comfort iyo convenience iyo raaxada iyo nafiska raadinaysay ayuu taa qaliyay taasuu ku trade gareeyay oo iskugu bedelay oo ku gatay it's all about exchange taasuu ku gatay
convenience iyo comfortka iyo pleasure iyo protectionka waxaas qofka bini aadanka moodayo the ultimate goal kuwaasuu bixiyey muxuu helay waxa dadka badankiisu ayna haysan buu helay oo dhadhan oo dabnimo iniin buu noqday qofkii wuxuu iska dhigay eventually qofkii wuxuu noqday qof lama loodiyaana midhuu noqday haddaad ku tuurto carrada wuu soo baxayaa haddaad meel ku hayso ma aragtay container ama daasad meel qarsoon haddaad ku hayso wuu iska joogayaa maalintuu helo favorable weather wuu soo baxayaa si alla si u qaran kartaa ma jiro meesha ugu adag wax lagu xabaale endka aanu haysanaa soo xabaal maaha haddaad xabaal geliso wuu soo biqlayaa taas waxa lagu noqonayaa dhisidda iyo shaqada laga qabanayo ahaanshaha marka lahaanshuhu macno ma samaynayo waxa macno samaynaya lahaanshaha ahaanshaha macno samaynaya lahaanshaha maaha ahaanshuhuna uu ka adag yahay baan isla garanay waxaan kale wax maadiya shaqadiisu is not a rocket science laakiin wax inuu qofku wax noqdo oo ahaanshihiisa iyo daatadiisa uu ka shaqeeyo is a difficult job taasaa markaa shaqo badan iyo hawl badan iyo dadaal and by the way marka hore eed bilaabaysid waa lagula yaabi markaad iska yara wadideed iska yara xamaaratideed si uun aad uga baxsato qariib baad iska yara ahaani waa lagugu qosqosli cabdi bilowaad sheekooyinkiisa aad baan uga helaa markuu bilaabayey maaragtay orodka buuraha ceere gaabo iyo maaragtay ay iska ordi jiray not knowing inuu maaragtay one day noqon doono international icon laakiin dadka tuulada jooga maxay lahayn cabdi way iska ordayaa they don't know ma garanayaan ka markaad adigu xitaa gudaha ka soo baxdid dan shaqo kala taala marka joonigu uu dheer yahay jooniga wax noqoshada iyo inuu qofku daatadiisa dhiso is a long journey waxaan ku sheegnay ka koobaad inuu qofku noqon karo qof maaragtay guilty oo maadaama unad wax isku dayin laga yaabo inuu wax badan daahiye kaa saarayiin saa darteed aad istiraaho waxaan khaldan armaabay adiga kaa khaldan yihiin oo wixii khaldanaa aad ku khalado adiga waxaad isku khaladay wixii khaldanaa iyo adigii baa isku khaldan marka waxaad istiri armaad adigu khaldan tahay hadda xaaladdu ma khaldan qofkaasi ma khaldan yahay laga yaabo no waxa laga yaabaa qof runtii diyaarsanay inuu xaalad aan u shaqaynin dhex joogo soo ma it comes with the time waa iska caadi cabdisooraan baa laga hayaa alla naxariistee siyaasaddu marna waa hay marna waa low soo samayn noloshaasaas marna waa hay manoon laakiin adiga shaqada kugu taalee lagaa rabaa waa maxay adiga shaqada kugu taalee lagaa rabaa waa maxay haygeegana inaad haysato laynkaaga lowgeegana inaad haysato laynkaaga adu maxaad haysanaysaa mar walba waad soo taagantuun meel adu qalantid baa lagu dhaafiyo waad soo taagantuun waxaad u qalantidaa qof aanad u qalmin la siiyey waad soo taagantuun waxaad u dadaashadaad heli weydo waad soo taagantuun madaxadaygaas iyo mayaladayga gets you somewhere waa taa markaa shaqada marka waxaan ku sheegnay ta koobaad waa gilti ha dareemin haddayna waxba khaldanayn haddii xaaladdu khaldan tahay situationku isku yar aadaad dareyn itna iyo adiga maaha wax xaaladda you stay there adu ma khaldan haddaad wixii saxday qabanaysa qaacidadii aan ku bilownay equationka lagu xisaabtamayo dabka xaabada koobaad ee ku shidayo dabka maxay ahayd cabdi waaxid waxay ahayd naftiisa isagaa reediya wax walba isagaa bixinaya wax walba isagaa la diyaara marka koowaad wuxuu aaminsan yahay qofka raba inuu wax qabto uu nolosha gowsaha caqabadaha wax kala soo dhex baxo ee natiijooyin dhab uu dhadhamiyo qofka rabaa wuxuu kala soo wuxuu diyaarinaya xaabada koowaad ee lagu shidayo ololahaasi waa isaga soo sama xaabada koowaad ee lagu shidayo ololahaasi waayo waa isaga qofka kale way nagii nidhi ma gudbuu qiil ma waayo mar walba qiil buu haystaa hebel baa sida yidhi heblaaya center xaaladaasaan ahayd taasaa iga dhinay tan ahayd weligii ma qaato eedda qofka aan diyaarka hayn qofku laakiin markuu diyaar yahay ee ka go-an tahay ee uu soo gaadho xaaladu yidhaaho aanu waxbaan bedelayaa waxbaan qabsanayaa waxbaan noqonayaa ee ay dhab ka tahay isagaa isshidaya markaa xaabada iyo ololaha wax ku shidaya ugu horreeya waa maxay waa isaga maxay u baahan tahay waxaasi boqolkiiba boqol ma bixinaya waxaan bixinayaa boqolkiiba 500 it comes with that qofku wuxuu noqonayaa qof naftiisa ay ka go-an tahay inuu wax noqdo by hook or by crook waan noqonayaa waan helayaa wuu ku seexanayaa wuu ku soo toosayaa wuxuu aaminsan yahay with that comes success
natiijooyinka midhaha macaan iyo natiijooyinka fiican ee dadku ay wada jecel yihiin kuma imaadaan adoo lagu jecel yahay adoo sacabka lagu tumayo adoo laga raaliyahay adoo dadka muhiimka ku xidhan adoo khayraad iyo lacag haysta adoo ishelay oo diyaarsan adoo wax walba garanaya adoo u diyaarsan oo radio xilligii ay ugu fiicnayda maba la gaadho wax you know that waad garanaysaa it takes discomfort qaab daray leedahay wejigabax bay leedahay qofaad ku hanweynayd oo gas kuu siiyay leedahay dadkaad is leedahay waxbay kula qabanayaan oo waxay kula shidayaan baa kaa dhici meel muhiim ku ahayd baad waayi bisaarad baa ku heli it's the most inconvenient times ayay ka soo baxaan the most beautiful results marka qofka raba inuu dhadhansado natiijooyinka wuxuu jecel yahay waa inuu trade buu galayaa ganacsi buu galayaa ganacsigu galaya waa maxay horta waxaad ka tanaasulaysaa waxa la yidhaahdo nafis waxaad ka tanaasulaysaa waxa la yidhaahdo baashaal waxaad ka tanaasulaysaa waxa la yidhaahdo issaar waxba iskuma kaa saara qofka ay ugu adag tahay in wax laga dhaadhiciyo aad hortegaysaa waxaad leedahay diyaar baan ahay shaqaan rabaa oo maxaad ka shaqaynaysaa wixii aad ii dirtaba nin diyaaraan ah shaqaysanaya hadduu helayow ayaa magacaygaba la yidhaahdaa ما بعد that kind of mindset قفك أركتده نوع عاية فكرة نوع عايز كل شيء غيره يا كم بدين كرتد نلا شلون كم بدين كرت قفك جهاد نفسية ونفط هذا دكتي in the life صاحبكم مرسل مو فديع أو فديع وسوى هذا جبني جبت كم وسوى هذا جبني نكا أنا أقول يريرو عولانو meelahan jeexjeexan yihiin oo ma aragtay hadaadna aragtaa zoranaysa war ciyaal ka fadhiista meesha oo aragtidaada xitaa aanay qaban karin ayaan nidhi waxbaan noqonaynaa wallaahi waan noqonaynaa oo maxaad ku noqonaysiin halkan aad joogtaan waan noqonaynaa iska ilaaba maskaxdaadu si yar u fikiraysi cidhiidhiga maskaxdaada anigu kuma shaqeeyo noloshan way ka weyn tahay fikradaada aad wax ka haysti endless of possibilities baa nolosha ayaa dunyada dhex yaala haddaad ku dhacdid inaad sheegatid haddaa ku dhacdid inaad damcadid waxyaabahan ka sheekayna markii dhaweyd maskaxdeena because we are so conditioned waxa la inoo sheego la inagu celceliyey because in wax la noqday so easy waxaan ilownay shaqadii wax noqoshadaba aniga hadda ka sheekayna markii dhaweyd qofku inuu sawir galo isagoo maaragtay meel qurux badan joogo sawir galo uu muujiyo inuu meel muhiim ah joogo ayuu ka jecel yahay actually inuu qabto shaqada halka geynaysa qof inuu qof muhiim ah sawir la galo oo Facebook soo dhigo ayuu ka jecel yahay inuu qof muhiim ah noqdo because it's easy inaan cabdi bilo oo soo shaqayso oo soo kifaaxo blood and sweat dhigay oo weligiiba maaragtay shaqaynaysu wax u noqon lahaa ayaan rabaa inaan cabdi bile caawashadanahay ha laakiin brother 30 sanadood oo shaqo adag joogtaa 30 sanadood oo bilaa hurdo adag joogtaa 30 sanadood oo dadaal kala joogsi lahayn hor joogtaa 30 sanadood oo la iska dhacay wixii lagu raaxaysan lahaa adag joogtaa but you don't know that xaka jeceshay selfie waxaan moodaynaa inay saa u fududahay nolosha it's not easy kulanada noocan oo kala dadka badankiisa waxay yiraahdaan waa motivation soma anu waxaan idhaa waa activation waxba ku tari mayso waxba ku tari mayso qofku ugu yiraahdo wax waa la noqon karaa hebel baa noqday sana loo noqdaa oo lagu celceliyo waxba ku tari mayso haddii aanad adu markaad noqoto naftaada ku odhan waa inaan sameeyaa haddaanad adu shaqadii qabsanayn motivationku ku yara istaadhayaan gaariga haddaad istaadho ood ka degto muu dhaqaaqaya no maxaad u baahan tahay si uu gaarigu u dhaqaaqo dee waa inaad speedka geliso kadib waa inaad qabato dee gaaska dee waa inaad adu shaqada qabatid marka yaa shaqada qabanaya laakiin motivationku waa maxay actionkana adaa iskale marka motivationku ku bilaabi laakiin ficil iyo fulin ayaa kugu haynaysa shaqada victor mindset kaasaa laga waa inaad isdhexgeysaa markaa that spaceka uu qofku dareemayo inuu haysto awood wax ku bedeli lahaa inuu uu dareemayo qofku inay ka xigto un isbedelka is a matter of time faruurtuu qaniisan yahay wuu neefneefsanayaa wuu haliilayaa
bal xayawaan ama libaax ama ay hilib la hor lunayo gaajoonay sidoo dareemaya wuu raagaya Soomaa wuu haliilaya maanta dhanbu isle wallahi wuu it's a matter of time waxaalad qofku is dhexgeyn karo xaaladna qofku hilibka laftigiisu ka baqaya wuu isle ma qalantid wuu isle waa laga horeeyaa wuu isle waa laga mudaya Soomaa waxa ka sheekeynay waa stageska marka adiga waxa ku qalma ee macna ku sameeynaya waxa weyn is dhexgeyso jawi aad aaminsan tahay inay kaliya ka xigta natiijadaada time so tama in ka xigta kaliya time because shaqadii u baahnid waad qabsatay markaad xaaladda ku jirto waxaad ku jirtaa xaalad farxad leh waad koraysaa kor baa u socotaa shaqaad qabsanaysaa waxa tahay gabadh dariiqayga haysata waxa tahay nin dariiqiisii haysta and you're living life taas markaa walaal waxaad ku ogaataa sidaan u gaari lahayn waxay ka bilaabmaysaa xariiq waxa weeyaan inaad fudaydka iyo maaragtay iiska inaad naftaada aad ka yar weeciso waxaan rabnaa eeg dhalinyaro inaga kuweena millennialska la yidhaha weliba 80-aadkii intii ka dambaysa dhashay waxaa iska jecelnahay adoo nasanayna wax walba heshid adoo iska raaxaysanayo wax walba gurigiina degan oo wiilkaaga yar helo oo dhagdhag oo wax walba isku aad inaa wax walba heshaa rabtaa sax marka waxay naga dhex baxay oonkii iyo doonistii qolada wadankii ku kortay wadankii ku xidhan ee degan ee maaragtay noloshooda halkaa ka soo alkumaysaa at least waxaan idinku yaro dhaanaa qoladiina ku koray westga iyo qurbaha gaar ahaan maraykanka waxaan idinku yaro dhaanaa we're hungry waan gaajoonaynaa by nature baan gaajoonaynaa qofka wadankii jooga wuxuu aaminsan yahay inuu wax rabaa inay noloshiisa ku xidhan tahay you guys are so relaxed idinku waxaad yaro moodaa inaad iska yara wixii lagu dadaal lahaa bay idinka yara dhow marka waxaad isleedahay it's okay waad u yar seexanaysaa aan u soo yar toos oo kale marka hangarkii baa idinka yaraaday idinka marka waxay u baahan tihiin in yaroo gaajo ah waxa kaloo u baahan tihiin in yaroo hamada in yaroo qariisad iyo doonisa ayay u yar baahan tihiin I don't know haddaan samayn karna de we need to come up with that waa inaan keenaa barnaamijyo gaajada iyo doonista iyo damaca iyo waxaa ku saabsan waa inaan keenaa badan baa idin yaallo khayraada laakiin de waxa so interestinga qofka khayraadku ka durugsan yihiinna shaqo saa'id u wadaa qofka khayraadku ka agdhow yihiinna wuba iska yar nasanaya waa cajiib moogtay bini'aadamku marmarka qaar waxaad soronaysaa waa arrin cajiiba waa inaad naftaada ku muddaa irbad gaajo ah irbad doonisa irbad hamada waa inaad isku muddaa irbad odhanaysa halkaan joogaa way fiican tahay alxamdulillah but I can do more and I need to do more right now haddii kale dee caadi baan iska ahaanaynaa walaal caadi baan iska ahaanaynaa eeg hadda dad badan oo laga yaabo inay halka fadhiyaan waddankii bay ka yimaadeen say doonaan ha uga yimaadaan sax nolol baa la soo raadsaday sax iyo fursado waana xaq caadiya baanu dhib uma arko qofku hadduu meel isugu maleeyo inaynu wax bedeli karin inuu bedelo ceeb ma arko ra'yi baan ka qabaa arrintaa oo dood weyn baan ka qabaa arrintaa waayo anigu waxaan aaminsanahay meeshaad joogto iyo meeshaad ku dhex nooshahay waxa ka muhiimsan waxa adiga kugu dhex nool I believe in that waa sababta dadkii aan isnaqaanay oo dhan iyagoo ka baxay tuuladii yarada deganaa aananu yidhi maya xaabadan aan yaro shidaya halkan aan ka samaynaya sheekadu waxayba macaan tahay marka iyadoona wax isku aadaniin waxaad dhaliso ayayba ka macaan tahay markii wax isku aadan yihiin inaad wax dhaliso I believe in that antaasaan aaminsanaa but I have to tell you this laakiin waa inaan daacad noqdo it wasn't easy it was not easy shaqo dheer bay ahayd hawl dheer bay ahayd rafaad badan bay lahayd traumatic experience bay ahayd mental breakdown baa ku dhex jiray niyadjab baa ku jiray buuq baa ku jiray shame baa ku jiray embarrassment baa ku jiray albaabo la isku xidhaa ku jiray waxaa ku jiray setbacks habeenno badan oo oohilaa ku jiray laakiin qofka taa xamili karaa uun baa dhadhansanaya macaanka guusha soo sama eeg markaa qoladiina soo safartay ee ka timiday waddankiiyo halkan timiday laba xujaa idin hor taalla
labada xujeedin hortaala mid waxa weeye iskuma heli kartaan waddankii baan ka nimanay fursad la'aan baan uga nimanay eex baan uga nimanay maana waxbaan isku yara aadanayn convenience iyo fursadaan soo raadsanay waa sax okay markaad halkan timaadana niicdii waddankii taalay baan halkan ka la aqlaaqayaa dee islama heli karsi oo xaafadihii iyo maaragtay qabiilooyinkii iyo jufooyinkii iyo sheekadii baggagekii iyo kiishkii ay ku jira qurunkii iyo waddankii yaallaan halkan keensanaya oo halkan aan ku fadhaya come on islama heli kartid haddaa waddankii uga soo baxday mushkiladaha jira xalkeegaa lagaa rabaa ugu yaraan inaad mushkiladii sii wadwadin baa lagaa rabaa intaad halkan life iga soo gasho markaa wixii waddankii yaallay sii laaqlaaq it's nonsense waa ceeb iyo shame weyn bay idinku tahay marka qoladiina safarka dheer u soo gashay inaad halkan nolol ka samaysataan okay good job qof noloshiisa isku soo aadisto dadaal soo bixiyay baan kuu tixgelinaynaa laakiin waxaan kaa rabnaa faa'iidada iyo wanaagga halkan aad timida yaalla ka faa'iidayso dadkaagiina uga faa'iidee haddaana ka faa'iidaysan karin shut up and live a private life that's it so intaa ma walaal waa run waddankeena iyo meelahan ka nimanay wax yaalla mushkilado badankoogana qof wax ugama qaban karno sax sama badankoogana qof wax ugama qaban karno laakiin haddaad wuxuun ka qaban karto wuxuu doonaha noqdee please do it khiyaal beena oo aan jirinna ha u sawirin masaakiinta laga yaabo inay weli nolosha la daraadhacayaan nolol aan jirin iyo khiyaal been oon jirin iyo nolol aanad samaysanba ha uga dhigin dadka khiyaali aan jirin because you never know dadku sida maxamed cumar oo dhan kale uma wada adka dad badanna waxaa jira laga yaabo inay maaragtay temptationsku ay weecin karaan soo maad fahmi marka live up decent life nolol fiican oo akhlaaq leh oo wanaagsan oo waxtar leh oo productive nolow ama dadka wejigooga ka yar leexo daraamadaada si yaroo private u wado okay marka waxaa idinka rabaa qoladiina kale ee waddankan ku kortay ee fursadaha iyo wanaagga badan ee laga yaabo inay meelahan yaalaan qabatintay waxa la idinka rabaa qofku wuxuu qiimo ku leeyahay oo uu sharaf iyo karaamo ku leeyahay oo ku dareemi karaa maaragtay ku dareemi karaa jiritaankiisa qofka dadka qaar way jiraan you're just existing dadka qaarna way nool yihiin oo waa dareemaysaa xayaat baad dareemaysaa ya oo dhaqdhaqaaq bay leeyihiin oo wax xidhiidhay leeyihiin oo qoysaskooga iyo dadkii jecel yihiin bay ku xidhan yihiin oo waxaad dareemaysaa there is a beautiful sense of living qofku uu dareensay inuu nool yahay ya the way siduu u hadlo siduu u dhaqmo wuxuu dareensiiyo dadka noloshiisa ku jira ya meeshuu joogo dareenkuu geliyo ya qof uu nool yahay xanaanka iyo compassionka iyo naxariistiisa weji furnaantiisa taageeradiisa ereyadiisa wanaagsan siduu u socdo siduu u nool yahay wuxuu qabto siduu u qabto all of this waxay wax ka sheegayaan qaab noloshaada dadka qaarna way nool yihiin dadka qaar kuwaasay sii dhaafsan yihiinoo they are thriving way dhaafeen nolol way bulaalayaan every day of their life waxaad arkaysaa meel god cusuboo intuu jeexday uu sii fidaya daadku soo ma fido daadku meel yaroo dhuuban buu kaa soo galaa soo ma laakiin muxuu sameeyaa de qaarna way ballaaranayaan waxbaa ku kordhaya mar walba fikrad baa ku kordhaysa faham baa ku kordhaya hayn baa u kordhaysa ahaanshaa u kordhaya garashaa u kordhaysa xidhiidhaa u kordhaya saamayn baa u kordhaysa marka idinka waxaa lainaga rabaa qoladiina halkan ku kortay halka shay waxa weeyaan walaal qofku inuu waxtar dareemo waxa ka muhiimsanba horta inuu isagu yahay resource inuu khayraad yahay inaad khayraad heshid maxaa ka muhiimsan inaad khayraad leedahay waxaad ku fahmi kartaa arrintaa dad badan oo khayraadkan raadinayno haysta oo marka khayraadkaa u isticmaalinayay wax ku dumiyaan baa jira soo ma because qofkii baan khayraad ahayn khayraadkii wuxuu taa la dagaalamaya dadka qaar all they need is because uu diyaarsan yahay khayraad buu baahan dadka qaarna all they need is in khayraadka laga qaado u baahan see u dareemaan
shaqadii khayraadka lagu keeni lahaa you know eeg nin baa wuxuu yidhi beri dhaweyd dadka qaar aad bay masaakiin u yihiin waxay haystaanba waa lacag bal hadda ereyga some people are so poor all they have is money bal hadda maqaalada ay xikmadda u dhiib miskiinaan lacag hayn ma u cuntamaysaa waran waxaan u baahanayba waa hayn saas oo oranaya suba laakiin wax la gaadhaa oo jirta xaalad qofku uu dareemo in wax kasta oo maadiya haddii aanad adigu lahayn adigu haddii aanad lahayn kartidii karaamadii shakhsiyaddii iyo haddaanad ahayn fasal haddaanad ahayn markab xamuul qaadaya oo risiqa dad kale ilaahay soo dhex marinayo haddaanad ballaadhnidaa lahayn waxba kuu tari mayso haynta badan soo ma ka idigu waxaa laydinka rabaa akhlaaqda teeda sare inaydaan ka tegin qofku markuu akhlaaqda teeda sare waa maxay qofku inuu waxtar leeyahay that's it intaa qofku inuu waxtar leeyahay waxtarka ugu weynina maaha uun inagu hayntumaan ka eegnaay waxtarka ugu weyni waa hoga tusaalayn waa fikrad waa aqoon waa maaragtay emotional support taageero dareen waa fursadaad ogtahood sheegto waa qofkood ku hadal qaado miis muhiim u isaga it's so being supportive and resourceful is not a percentage-kay tahay wax maadi way iska kooban tahay waxa badan percentage-kay tahay ruuxi wax la dareemayo nafta qofku uu dareemayso waxa walaal rabaa inaan idinku daro muraman ku noolaa ku koray waxay ku dhalatay waxaad u baahan tihiin hamadis iyo fikradis in ka badan intaa u baahan tihiin xirfadis waxaan arkay I think trendkan cid walba goob walba iyo magaalo walba iyo deegaan walba way ka jirtaa arrintani maanta information la'aan inama hayso walaal we have so much information is available everywhere so sama maanta aqoontu waa bilaash internetku waa bilaash wax walba waa bilaash so sama laakiin maxaynaan hayn oo inaga dhiman maxaynaan hayn oo inaga dhiman no aqoonta isticmaalkeygii oo noqonaysa akhlaaqdii so sama information-kaan ina badankiisa faasid buu inagu noqday dadku waxay informed ku yihiin qadiyado waaweyn oo adduunka ka jira waddan hebel yaa madaxweyne ka ah maaragtay yaa isku haya xaggaa iyo xaggaa maaragtay maxaa halkaas updated weeyaan marka newska caadiga iyo well affairska la eego but sadly informationka wax taraya ee truly valuable ka ee qofka course of life-kiisa bedeli kara ee wax tari kara ee dhaqaale u samayn kara ee u samayn kara xirfad ee fursad u furi kara ee albaab cusub u furi kara ee noloshiisa bedeli kara ee caafimaadkiisa bedeli kara it's very limited because waxaan ku xidhannahay internetka nolosheena badankeegu waa entertainment badanka nolosheena waa iska entertainment movie information xaggan maxaa la ciyaaray hebel waxaa nolosheena badankeega kuma qaadanayo education it's information entertainment not education baaban haynaa baan leeyahay anu waan aaminsanahay wax badan oo macluumaadaan haynaa way iska jirtaa dhegweynimo meelo badan inaga haysataa way jirtaa laakiin aqoontii waxay la'dahay akhlaaqdii hagi lahayd walaa majaal kastoo nolosheena waxa ka dhex baxday valuegii iyo akhlaaqdii haddii aan inta hore ee nolosheena ama aragtay isku dayno inaan fudaydino ee caadi ka dhigno oo aan si yaro caadi u noolaano waa caadi xisaabta xagga dambe aad ka bixinaysaa hadhow adoo 60 jir baad kaariyoono wadan I appreciate people who are doing this job waxa jiray naasa waad garanaysiiso ma dadka horta meesha xaq u ahaa dadka meesha horteeda xaq u ahaa wuxuu yidhi waxa lagu yidhi shaqadaada ka war u fiirsan ninkaasi shaqadiisa siduu uga sheekeeyey wuxuu yidhi hadda waa kuugu celinayaa ninkaasi qabka iyo kartida ku jirta iyo si wuxuu ka aaminsan yahay shaqadu qabanay wuxuu yidhi anigu waxaan qayb ka ahay mashruuc dayaxa dushiisa lagu tegayo hadda ninkaasi waa nin xaadha naase horteedu xaadha muxuu aaminsan yahay waxaan qayb ka ahay mashruuc xagga sare ah mashruuc dayaxa lagu tegayo yaan qayb ka ahay buu aaminsan yahay adigoo dhakhtara ama maaragta laga yaabo shaqeero fiican iska haysta haddii lagu weydiiyo
shaqo yar oo xun baan meelahan ka hayaayo qorshiyada ciyaalkan ku karsadaayo adaaba la degay shaqadii intayn iyadu kula degin because you don't honor adigu ma sharbaysid shaqada it's how you look at your job it's how you look at your life marka qaar qaabkaad isku aragtay isku cabirayso ayaaba waxa dhan ee laga sheekeynaya ay tahay boorama markii aan wax ka bilaabay macad baan ka furay waxaan islahaa niyo sidaan u fikirayno wax badan baa ka khaldanay arrinta in la address gareeyo ay u baahan tahay macadkii baa controversial noqday macadka waxaan dadka ku bari jiray sida wax loo noqdo oo maxaa la noqonayaa naftaadaad noqonaysaa tii aan ka sheekeynay hadda in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru waxaan aaminsanaa markaa from xitaa berigaa waxaan aaminsanaa what's inside is more important than what's outside gudahay baashu ka soo bilaabmaysa haani xaggee ka tolantaa gudaha sidaa macayn haani xaggee ka tolantaa maxay wuxuu ka soo bilaabmayaan macadkii baan furay controversial buu noqday culturekeenu waa culture cajiiba qofku wuxuuna hayn ceeb baa laga dhigaa waxa lagu odhani qof baa dhegta laga yaabaa inay cillad ka heri jirto dhegloo qof baa farta laga yaabaa inay wax ka soo gaadhay farloo dhegjar cabdi bidaar cabdi indo wixii naga dhiman baa laysku caaya maxay abuurtay marka arrintaas waxay abuurtay xaalad qof wuxuuna haysan uu inferior ku dareemo qofku wuxuuna haysan inay identitygiisa uu ka dhowro oo isku ekaysiiyo qof wax walba haysta sidama de ma haysano wax kasta ma haysanaa anu ciyaalnimo waalan baa soo maray waxyaaba ay xoreeyeen waxa kow ka ahaa inaan jeclaaday the chaotic childhood I have haddaan nici lahaa ma bedeli kareen because waan jeclaaday waxaan ka dhigtay patch of honor askartu markay dagaal ka soo noqdaan maxaa loogu xidha xaggan dee waa traumadii iyo xabadihii iyo jugtii iyo waalidii ay soo mareen ayaa lagu abaalmarinayaa because waxa taasaa loo ekaysiinayaa honor sama sharaf I believed wax kastoo ciyaalnimadii aan soo waayay oo iga dhinaa inay yihiin sharaf ii dhinayd wax iga dhiman maahayd sharaf ii dhinayd then maxadkaasaan bilaabay waxaan idhiniyo war wax badan baa inaga khaldane bal horta dib aan isugu noqono dhallinyaradaan la hadli jiray waxaan kala hadli jiray the experience we have the difficult life where challenges-kana haysta mushkiladahana haysta ciyaalnimadan lanaga xaday controversial bay noqotay meel kaste waa lagaga hadlay war ninkani waxaan uu wado ma xadiisayo ma gabyayo ma heesayo haddana wax buu sheegaya war ninkan yaa naga qabtay wallahi waan xasuustaa masaajidadaa layga sheegay it's a little traumatizing marka adigoo yaroo koraya oo maaragtay iska tabar yar marka adigoo yaroo korayo iska tabar yaroo waxaad haysaabay wax macnale aan ahayn all you have is niyad fiican eegata wax kale ma ismoogta waxa ugu weynaad haysaa niyad fiican but guess what niyad fiican ma inahay wixii ugu weynaa ka sheekeynayna if you have that nothing matters if you don't have everything else doesn't matter so samahin I had that one wallahi wax kale ma ahayn all I had is a golden mind golden heart qalbi yaroo dahabiya oo mayal adag oo isma dhiiba ah oo isku kalsoon oo gidaarada jiira oo qofka ugu adag ee laga boqo hortago yiraahdo you are wrong ba igu jiray and that's what saved me then maalmaha kamida waxa dhacay